السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan qiso aad iyo aad cajiib ah. fadlan hanaga hilmaamin inaad saarto subscribe, like-tana ku darsiina share garee. waxay ku saabsan tahay qisadan nin taajir ah kaasoo xaqiiri jiray dadkii asiga u dhawaa. markii uu noqday Ustaad Xamdi ku caansan shaqada, wuxuu leeyahay ku geesiis taagnaa oo soo garab taagnaa ilaa halkan uu soo gaaro, gaar ahaan xaaskiisii ehelkiisa. xaaskiisa waxay ahayd mid aad daaw ah, waxayna ahayd mid oo la tashto oo ka kaalmaysa shaqada. wuxuuna ku fikiray inuu ka buriyo iyadii caruurteeda guriga. wuxuu u arkay arrinkaas wanaag. xaaskii way murugootay, waxayna u sheegtay xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyadoo taagan. waxayna ku dhahday sida tan: qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam, inna allaha awxaa ilayya an tawaadacuu xataa laa yafkhara axadun calaa axad walaa yabgii axadun calaa axad. xaaskii waxay baxday iyadoo murugaysan, waxayna rumaysan weysay ninka halkan soo gaarsiiyo saan u galay, kaas oo asaga kala tashan jiray arrimaha ganacsiga iyo maalka. waxayna Allah ugu baraday inuu asaga Ilaahay soo hanuuniyo. Ustaad Xamdi wuxuu sekreteeri ka dhigtay xaaskiisa wiil ay qaraabo ahaayeen. gabar dhalinyaro oo qurux badan ayaa waxa uu qurxiyay wiil ka mid asxaabtiisa, kaas oo ah mid xun ah. saaxiibka xumaa wuxuu bilaabay inuu gabadha sekreteeriyada uu ku qanciyo iyo inay u raacdo maamulaha gurigiisa iyo habeentii iyo adeega shaqada guriga. way ku faraxday arrinkaas, wayna ku waafaqday arrinkaas asiga. maalintii ugu horeysay ee sekreteeriyada guriga ay soo gaartay, waxay guda gashay in ay ka fikirto guurka. run ahaantii arrinkaas kadib guurka uu dhacay ilaa ay ka haraan shaqada. waxayna noqdeen kuwa guriga jooga oo mar walba ka wada hadla arrimaha qoyska ilaa ay ka garato arrimihiisa sirta oo dhan iyo waxyaabihii u qarsoonaa asiga. dhanka kale, wiilkii xumaa iyo gabadhii ayaa waxay ku shirkoobeen lacag aad u badan. kadib waxay ka dalbatay in uu la shirkoobo nin ka imaanaya khaliijka, kaas oo u imaanaya arrin, wuuna ku waafaqay arrinkii iyada. ninkii khaliijka wuxuu u sheegay in ay labadooda shirka yihiin, inuu lacagtiisa siin doono maalmo kadib. bilooyin kadib ma uusan siinin ninka taajirka ahaa ninkii khaliijiga ahaa lacagtiisa. wuuna la soo xiriiray, wuuna u maaday, wuxuuna u sheegay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam, mudlul qaniyi dulm. sidoo kale wuxuu dhahay: man iqtadaca xaqa musliman biyamiinih faqad awjaba allahu tacaala lahu nnaar wa xarama calayhi aljanna. Ustaad Xamdi muusan muhiim siinin hadalkii ninkii khaliijiga ahaa. gabadhii xaaskiisa ayaa waxay u sheegtay inuu asiga khaldan yahay uuna siiyo ninkii khaliijiga ahaa lacagtiisa. waxayna bilowday inay iska dhaafto waxyaabaha xumaanta ayna ku beddesho wanaag. wuxuuna bilaabay inuu saxiixo warqadihii ogolaanshaha, iyo wuxuu bilaabay inuu saxiixo warqado uu ku tanaasulayo maalkiisa ilaa uu maalkiisa ka galo khatar. waddada guushiisana waxay ahayd arrinkan. maalin maalmaha ka mid ah, xaaskiisa waxay dareentay xanuun aad iyo aad u daran. Ustaad Xamdi wuxuu dalbay dhakhaatiir aad u fara badan. xaaskii waxay dareentay qalqal aad u daran iyo cabsi, iyo toobadkeenka ee toobadkeentay iyada. goortii ay maqashay asigoo duceysanaya habeenka kale barkiisa, qalbigeeda u degay. waxayna ahayd mid ku faraxda arrinkaas, waxayna ahayd mid saxda qaladyadii hore oo gashay oo dhan. way bogsatay xaaskii. Ustaad Xamdi waxaa la yaab ku noqotay xaaskiisoo ooynayso. wuxuuna arkay intuu shaqada aadeen ka hor, iyo waxayna u sheegtay in ay ku faraxsan tahay arrimihii uu sameeyey oo wanaag ah oo dhan. waxayna ka shallaysay saaxiibtinimada ay la saaxiibtay wiilkii xumaa, kaas oo la doonayo xumaan. waxayna ku dhiirigelisay inuusan xumaan samaynin asiga, iyo inuu soo ceshto xaaskiisa iyo carruurtiisa oo hore aga tageen. wuu rumaysan waayo arrinkaas. fikir kadib waxaa dhacay inuu soo celiyo xaaskiisa hore iyo carruurtiisa, iyo wuxuu ka cudur daartay falkii uu hore u geystay, iyo wuxuu guda galay inuu soo celiyo iyadii carruurteeda oo dhan. kadib wuxuu raaligeliyey ninkii shirkaha kulaha arrimaha ganacsiga. kadib wuxuu gartay qaladkiisa iyo ka fogaanshaha waajibaadka Alle, iyo wuxuu ka tala baxay ku kalsoonaanta saaxiibkii xumaa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.